qoyska gurigan maanta loo dhameystiray ayaa hore u ahaa qoys bilaa guriga isla markaasina waxay ahaayeen reer aad u ballaaran waxaanay baahi weyn u qabeen in guri sidan oo kale ah ay helaan mas'uulka hay'adda Iwaado Sheekh Aadan Xasan Siciid oo halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay qoyskan iyo sida ay ugu baahnaayeen in gurigan loo dhiso isla markaasina waxa uu mahad celiyay dadkii ka soo qayb qaatay dhismaha gurigan iyo in ay xaafadani hesho guri ay iyagu leeyihiin ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'ala walaalayaal maanta waxaan joognaa halkan reer Ismaaciil oo aynu ku wareejinayno guryahan labadan qol aynu u dhisnay alxamdulillah waa ilaahay mahadii subxaanahu wa ta'ala haday maanta aynu u dhameystirnay reerkaas family ahina uu magaranaysaa caruurta badani magaranaysaa ay helayaan guri ay u hoydaan sida ii sheegeen u garanaysaa meeshii awal deganaayeen meel yar oo qol qura oo reer fara badana oo waliba qolka yar oo sandaqada oo aanay ku filayn reerkoo dhan ayay ahayd hanti aanay lahayn ay ahayd oo lagu amray inay ka baxaan si degdeg uga baxaan marka amarka ilaahay waxa weeyaan waxaynu u helnay oo aynu sameeynay halkan haddana maynu ku wareejinaynaa maanta oo bari bay u soo guuri karaan ilaahay fadligiisi marka barakallahu fiikum wa jazaakallahu khayran walaalayaal waxa jira reero fara badan iyo familiyaal oo khaasatan agoon aad u fara badan oo sidii ku hadda aan soo marnay oo kale iyo qaar kale oo ka sii daran ay ku jiraan marka waxa weeyaan ilaahay miisaanka xasanaadka idinku kordhiyo waxaanu idinka codsanaynaa in la soo badiyo oo magaranaysaa si aynu cidda bilaa guryaha ah inaynu magaranaysaa sidii loogu dhisi lahaa meel hooyo ay u hoydaan oo roobabka iyo magaranaysaa iyo kuleylka iyo meel walba ay ka geli karaan marka barakallahu fiikum waxaan idin leeyahay ku soo dheerada insha Allah ilaahay idinkii waxa weeyaan Allah ayaa idin barakeynaya subhanahu wa ta'ala maalkiina marka haddana waxaynu ku wareejinaynaa Ismaaciil iyo familigiisa iyo caruurtii iyo habliyo wada jooga oo faraxsan oo maanta magaranaysaa ku faraxsan inta xaq magaranaysaa aan qiimaha aad u fara badan la aan lahayn haddana iyaga xaqooda wax weyn ku ah magaranaysaa barakallahu fiikum jazaakallahu khayran mas'uulka qoyska gurigan loo dhisay Ismaaciil Axmed ayaa u mahad celiyay dhammaan muxsiniinta gurigan u soo dhisay waxaanu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in ay helaan dhismo iyagu ay leeyihiin waxa kale uu sheegay in guri hore oo ay ku jireen looga soo saaray in ay iska bixin kari waayeen kiradii iyo wixii ay ku bixin lahaayeen gurigaasi alxamdulillah rabbil alamin ilaahay baa mahad leh mahadna waxa leh alle hadoo dhan waxa mahad kale u sii leeyahay Iwaado oo nasiisay gurigan alxamdulillah rabbil alamin waxaan ku jiray aniga iyo family-gayga oo dhamay oo 12 ciyaal weeyaan 44 ugu yaraa intii kalena way yara kala muuqanayeen imika hal maqsin baan ku jiray way noogu yimaadeen gurigan la ku soo wareegno soo aragnay alxamdulillah dabeetana waxay dhaheen guri baan ku dhisanaa intermediate sameeyeen imika labada qol alxamdulillah rabbil alamin ma sha Allah weeyaan waan mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay hawshan oo ilaahay barakeeyo ilaahay marti waxay soo bixiyeen wax khayr Allah ugu bedelo aad iyo aad baan u faraxsanahay ma lahayn meeshii waxa la igu yiri xataa ka guurmada la qabtay caga juulin baa xataa ku jiray caawa aniga la wareegnay aniga caawa saxanay insha Allah hawde bartana insha Allah reerkii soo rareeyaa alxamdulillah rabbil alamin dadka u shaqalay oo dhan waan mahadnaqayaa